war degdeg oo hadda soo dhacayna waxa uu muujinayaa in Xuutiyiinta Yemen ay isku diyaarinayaan inay xiraan Baabul Mandab iyagoo doonaya in ay ku cadaadiyaan Mareykanka si loo joojiyo go'doominta dhaqaale ee Mareykanka uu ku hayo Iran. Xitaa xiritaanka Baabul Mandab waxa ay leedahay saameyn caalami ah oo xaaladda dhaqaale ee dunida ugu sii dari karta xilli uu horey u xirnaa marin-biyoodka Hormuz. Sida dhaqsaha leh ee Baabul Mandab loo xiray waxa ay saameyn ku reebi doontaan Soomaaliya oo badeecadaheeda ka soo gudubsato halka. Dhinaca kale, war hadda soo baxay waxa uu sheegayaa in hogaamiyaha Xuutiyiinta Yemen Cabdilmaalik al-Xuuti ayaa waxyar ka hor warbaahinta laga sii daayay hadal uu u jeediyey oo digniin ugu diraya Sacuudiga. Waxa uuna yiri Sacuudiga waxa ay weerareen garoonka diyaaradaha ee Sanca, isaga oo si cad ugu sheegay warbaahinta weerarka waxa uu dhacay ayuu yiri iyadoo maalin cad ay tahay wax sabab ah uu weerarkaas ugu cudur daaran karana ma jirto ayuu yiri Sacuudiga. Anagu wax dhibaato ah uma aanan geysan ayuu yiri, sidee ay noo weerareen noo beegsadeen dabadeedna ay u filayaan inaan inaga iska aamusno ayuu hadalkiisa ku daray. Waxa uu intaasi sidoo kale ku daray jawaabteenu waa caddahay haddii ay weeraraan Sanca anagu waxa aan weerari doonaa Riyaad haddii ay beegsadaan dekedeena, annaguna waxa aan beegsan doonaa ayuu yiri dekedahooda haddii ay na go'doomiyaan annaguna waan go'doomin doonaa. Waxa kaloo uu yiri maxay nagu diidayaan ayuu yiri in aan ka faa'iidaysano shidaalka iyo gaaska dalkayaga, maxay u rabaan in shacabka Yemen ay gaajo iyo dhibaato ku noolaadaan. Ugu dambeyntiina waxa uu yiri haddii Sacuudigu mar kale weeraro ama weerar nagu soo qaado annagana waxa aan ugu jawaab celin doonaa si adag. Ma doonaysaa inaad noqoto qof Quraanka Kariimka si sax u akhriya? ku soo dhawow markaska barashada Quraanka Kariimka ee Daarul Qur'aan Online. waxaad heli doontaa Quraanka Kariimka tajwiid iyo taxfiid, ingaada Quraanka bilow ilaa heer sare, ducooyinka muhiimka ah sida Xisnul Muslim. faa'iidooyinka dugsigan uu la gaarka yahay waxaa ka mid ah macallimiin khibrad u leh casharada online-ka. meel kastoo aad joogto waad ka baran kartaa jadwal fudud oo ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waa la qaadanaya. maxaa kaa hortaagan maanta bilow safarkaaga Quraanka Kariimka ha noqon qof dib u dhigta khayrka Alle. diiwaangeli nambarka shaashada kaaga muuqda ama guji calaamadda WhatsApp-ka hoose.